السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal. Ardaynimadu waa fadli uu Ilaahay ku galladaysto qayb ka mid ah addoomihiisa, halka kuwa kale aysan helin nasiibka ah inay wax bartaan duruufo haysta awgood, sida faqri, dagaalo dheeraaday, cid wax barta oo aysan helin iyo wixii la mid ah. Haddaba qofkii hela nasiibkaas ah inuu wax barto, waa inuu dareensan yahay in nimco dheeraada uu haysto, Ilaahayna uu ka doortay dad badan. Walaalayaal, waxaan ka dheregsannahay fadliga uu leeyahay cilmiga iyo ahmiyadda waxbarashada. Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu ku tilmaamay suuradda Zumar in aysan sinnayn qofka wax bartay iyo kan aan waxba baran ee jaahilka ah. Sidoo kale cilmiga ahmiyadiisa waxaana tusaya aayadihii ugu horreeyay ee ku soo dega nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxay amreen wax akhrinta, waana 5 aayadood ee suuradda Calaq ugu horreysa. wax akhrintuna waa qayb ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee aqoonta. haddii aan mawduuceena hore u galno, ardayga guuleysta heer walba uu waxbarashada kaga jiro waxaa lagu gartaa tilmaamo iyo sifooyin uu ardayda kale kaga duwan yahay. muhiimadda mawduucan ayaa ah in ardayda ay helaan xogo iyo habraacyo ku saabsan ardaynimada wanaagsan, kuwaasoo ka caawin kara ardayda inay abuuraan ama yeeshaan tilmaamaha ardayga guuleystay. tilmaamaha ardayga guuleystay waxaa ka mid ah daacadnimo. ardayga wanaagsan isla markaana guuleystay waa arday wax u baranaya inuu naftiisa ka saaro mugdiga jahliga, sidoo kalena rajeynaya inuu aakhiro ku badbaado cilmiga uu Allah subxaanahu wa ta'aala baray. intaa kadib waa arday doonaya inuu ka anfaco cilmiga uu baranayo dadkiisa iyo dhammaan muslimiinta. barashada cilmiguna kama aha inuu helo dadka ammaantooda iyo inuu ku faano dadkana iska weynaysiiyo. qofka noocaas ah ee wax bartaana kuma liibaano, cilmigiisana waxtar ma yeesho. ardayga guuleystay waa arday waqtigiisa qorsheeya oo dareensan qiimaha uu waqtigu leeyahay, jadwalna u sameeya noloshiisa iyo hadafkiisa waxbarasho. waqtigu waa shay qaali ah, waana laf-dhabarka nolosha. adduunkan aynu ku noolnahay, dadka meel ka gaaray waa dadka waqtigooda ka faa'iidaystay. dadka hore ee aan waxba ka qabsan adduunkana waa dadkii dayacay waqtigooda. alle in badan ayuu ku dhaartay qaybo waqtiga ka mid ah, sida casarka, fajarka, habeenka iyo maalinta. waxayna ku tusaysaa dhaartaasi muhiimadda waqtiga uu leeyahay, maxaa yeelay Allah subxaanahu wa ta'aala kuma dhaarto shay aan muhiimad weyn lahayn. ibn qayyim waxa uu yiri, waqtiga oo la dayaco waxay ka daran tahay geerida. Abdullah ibn Mas'uud sidoo kale waxa uu yiri, uma aanan murugoon shay sidaan ugu murugooday maalin ay dhacday qorraxdeedii, cimrigeygii nusqaamay uuna cilmi ii siyaadin. Xasan al-Basri waxa uu isna waqtiga ka yiri, in aadano waxa tahay ayaamo, haddii ay maalin tagtaana qayb kaamid ayaa tagtay. Aamir ibn Abdul Qays oo ka mid ahaa taabiciyiinta ayaa maalin nin ka soo horbaxay, markaas ayuu ninkii ku yiri, istaag oo ila hadal. Aamir ayaa ugu jawaabay ninkii, qorraxda jooji aan kula hadle. waxaan halkaas ka dheehan karnaa sida uu taabicigaas waqtiga ugu xisaabtamayo. taabadalkeeda, innaga intee waqti ayaa xisaab la'aan u dayacnaa. dadkii hore, gaar ahaan kuwoodii wax baran jiray, wax kasta uu kala qaalisanaa waqtigu. saacadaha ay wax cunayaan ayay dhibsan jireen waqtiga kaga lumaya. marka ay wadooyinka marayaan ayay ka faa'iidaysan jireen waqtiga oo ay cilmi akhrin jireen. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo aad wada garanaysaan heerka uu aqoonta diiniga iyo midda maadigaba ka gaaray, ayaa waxaa la sheegay inuu aad uga faa'iidaysto waqtigiisa. mar walba oo aad aragtaana waxbuu akhriyaa ama wuu dhegaystaa. daawade, ma aaminaysid haddii aan ku dhaho qof ayaa geeriyooday isaga oo wax akhrinaya. sheekh lagu magacaabi jiray Thaclab al-Naxawi ayaa waxaa la sheegay in isaga oo 70 jir ah oo wadada maraya cilmina akhrinaya uu god ku dhacay, halkaasna uu ku geeriyooday. walaalayaal, lama soo koobi karo qisooyinka tilmaamaya culimadeennii hore si ay uga faa'iidaysan jireen waqtiga. isku day inaad ku dayato dadka wanaagsan, in lagu daydaana waa sharaf iyo guul. sidoo kale waqtigaaga yuusan ciyaarkaaga lumin, iskana ilaali waxyaabaha waqtiga lumiya. haddii aan yara taabto waxyaabaha waqtiga lumiya waxaa ka mid ah inaadan dareensanayn ahmiyadda iyo fadliga uu leeyahay waqtiga. in aad hawada naftaada raacdo, naftuna waxay jeceshahay raaxada, iyo in aadan mashquulin. in waxa aad hadda qaban karto dib u dhigto oo aad dhahdo birri ayaan qabanayaa iyo wixii la mid ah. inaad leedahay saaxiibo xunxun oo waqtiga kaa lumiya, aadna kala sheekaysato wax aan waxba kuu tarayn. internetka oo aad ku mashquusho, gaar ahaan Facebook, TikTok iyo waxyaabaha la midka ah, weliba casrigan aan noolnahay, waa halka ugu badan ee waqtiga ka qaada da'yarta. sidaa darteed arday, iska ilaali waxyaabahaas si aad hadafkaaga waxbarashadeed uga miro dhaliso, cilmigana heer uga gaarto. waxaa ka mid ah tilmaamaha ardayga guuleystay waa arday ixtiraama macallimiintiisa. ardayga guuleystay waa ardayga ixtiraama, qadariya, isla markaana maamuusa macallinkiisa, macluumaadka uu sheegayana u dhag raariciya, si adaab iyo xushmad lehna ula dhaqma.
ogow arday, macallinku waa waalidkaaga labaad, kaas oo kula jecel horumarka iyo inaad meel sare gaarto. waxa uu u dhididaa oo uu u soo jeedaa una ka lahaa siduu aqoonta kuu gaarsiin lahaa, mana mudna inaad xaqiisa ka gaabisid. sheekh lagu magacaabi jiray Rabiic oo ka mid ahaa ardaydii al-Imaam Shaafici raximahullah, waxaa laga soo wariyaa inuu yidhi, kuma aanan dhiiran inaan biyo cabo Imaam Shaafici oo isoo eegaya. ardaydii hore ee taqaanay xaqa iyo ixtiraamka macallinkooda waxay ka ilaalin jireen wax walba aan u qalmin macallimiintooda. sootaan macallimiinteenna ku soo dhoweyn jirnay oo aan u qaadi jirnay marka ay fasalka noogu soo galaan beydkii carabiga ahaa ee micnihiisu ahaa, u istaag macallinka, ilaali adiga oo weyneynaya. waxa uu ku dhowaaday macallinku inuu rasuul noqday. laakiin nasiib darro, hadda xaaladdu waa isbedeshay oo macallinku waxa uu ka mid noqday dadka loogu ixtiraamka daran yahay, marar badanna naftiisaba uma ammaan helo. arday guulaysta waa arday u dulqaata dhibka waxbarashada. culammadu waxay dhihi jireen hadal micnihiisu yahay, laguma gaaro cilmiga jirka oo loo raaxeeyo. taariikhda dadkii waxbartay markaad akhriso waxaad arkaysaa arrimo adag oo ay u soo mareen barashada cilmiga, sida safaro dhaadheer oo ay weliba cagahooda ku soconayeen, gaajo iyo haraad iyo waxyaabo kale oo ay ugu soo samreen si ay cilmi u kororsadaan. cilmigu waa shay sare, waxa sarena laguma gaaro si fudud ee waxaa loo maraa adeeg iyo dhibaato. al-Imaam Shaafici waxa uu yidhi, lama haleelo cilmiga iyada oo aan dulliga lagu sabrin. Cabdullaahi ibnu Cabbaasna waxaa laga wariyey inuu yidhi, isaga oo ka hadlayay cilmiga, waan duloobay markaan dalbayay, waana cisoobay markii la iga dalbayay. ninkii carabiga ku gabyeyna waa kii micnaha gabigiisa ahaa, qofkaan dhadhamin qaraarka waxbarashada saacad wuxuu qurquriyaa dulliga jahliga noloshiisa oo dhan. ardayga wanaagsan waa arday aan fadhiisan xagga dambe ee fasalka si uu waxyaabo kale ugu mashquulin. dib ismaruntana waa caadada ardayga caajislaha ah ee iska ilaaliya inuu macallinka arko. ardayga guulaysta waa ardayga ducaysta. ardayga guulaysta waa arday ducaysta, allana ka barya inuu cilmiga u sahlo. nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaa ka sugnaatay inuu ku ducaysan jiray, alla waxaan ku weydiistay cilmi naafica iyo risqi wanaagsan. waxaad intiina badan la socotaan in natiijada dugsiga sare lasoo dhejiyey maalmo ka hor. ardayga kaalinta koowaad ka galay guud ahaan imtixaanka Soomaaliya ee dugsiga sare, mar la weydiiyey guusha uu gaaray waxa ka dambeeyey, waxaa ka mid ahaa inuu ducaysan jiray. ardayga guulaystay waa arday waalidkiisa baari u ah. ardayga wanaagsan waa arday baari u ah waalidkiisii adduunka sabab ugu ahaa inuu yimaado, waxna soo baray, una duceeyay waalidkiis iyo dhammaan macallimiintii cilmiga bartay. sidoo kale ardayga guulaystay waa arday iska ilaaliya inuu saaxiib xun yeesho. saaxiibka xun dhib ayuu kuu soo jiidaa, waxauna kaa mashquuliyaa wanaagga iyo waxbarashada, waxaadna ka barataa akhlaaqda xun oo isaga ayaa macallinkuu noqonaya. nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi, qofku waxa uu la diin yahay saaxiibkii, ee ha iska ego qofkiin cidda uu la saaxiibayo. ogow haddaad wanaagsan tahay laakiin aad leedahay saaxiib xun, dadku waxay kugu tirinayaan dadka xunxun. xitaa macallimiintaada, haddii aad arday xun la fadhiisato, isku mid ayaad u noqonaysaan. ugu dambeyn, qof walba oo arday ah islamarkaana daawanaya muuqaalkan, waxaan kugula dardaarmayaa inaad dhaqangeliso tilmaamahaas wanaagsan ee lagu garto ardayga guulaystay. sidoo kale caado ka dhigo tilmaamahan inta aad awooddo, maxaa yeelay taas ayaa cilmiga lagu baran karaa, heer sarena looga gaari karaa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. haddii aad ka heshay, fadlan la wadaag qof walba oo aad is leedahay waxbuu ka faa'iidi karaa. mahadsanid. inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.